boqortooyadii reer Samama waxay ka talisay xeebaha Soomaaliya waa su'aal la yaab leh markii aad maqasho qoomkii reer Saba waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya aayadaha Quraanka ah ee ku jira suuradda loogu magac daray ee suuratu Saba taasi oo laga yaabo inaad marar badan akhrido oo warbixin buuxda inaga siisay boqortooyadii iyo ilbaxnimadii dadka reer Saba ee ku noolaa koonfurta jasiiradda Carabta gaar ahaan dalka haatan loo yaqaan Yemen waxa kale oo kugu soo dhacaya barwaaqadii ay ku noolaayeen waaye badan iyo burburkii ku dhacay biyo xiroonkoodii weynaa ee Maarib arrinkaasi oo dhaxalsiiyay inuu burburo nidaamkii beeraha ay ku noolaayeen dabadeedna ku qasbay inay ka qaxaan dhulkoodii reer Saba waxay ka soo daahireen koonfurta jasiiradda Carabta 10 qarni ka hor dhalashadii Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam taasi oo ku beegan muddo haatan laga joogo ilaa 3,000 oo sano dadka taariikhda faaqida qaar baa ka horeysiyay muddadaas ha yeeshee la iskuma raacsana waxayna ahaayeen kuwa hodan oo kheyraad badan haystay sida ay sheegeen taariikhyahanadii Giriiga iyo Roomaankii hore xaruntooduna waxay ahayd magaalada Sarwaax ee gobolka Maarib ee dalka Yemen tan iyo markii uu soo ifbaxay dhiganihii yaabka lahaa ee dalmareenka Giriiga ahaa ee Peribulus of the Erythraean Sea oo si weyn loogu faahfaahiyay ganacsiga xabkaha iyo canaanada udgoonka iyo alaabooyinka kale ee naadirka ahaa ee laga dhoofinayay xeebaha dhulka Soomaalida taasi oo ku aadaneed waagii uu daafuray luqad-yaqaankii mucjisada ahaa ee Jean Franchos fartii masaaridii hore ee hieroglyphiska loo yaqaanay waxaa la ogaaday safaradii dheedheeraa ee masaaridii faraaciintu ay ku tageen dhulkii alle waa bunti dhulkaasi oo lagu abbaaray inuu ahaa xeebaha Soomaalida ilaa waayadaas waxa ay soo tarayay baaritaano iyo dadaalo lagu raadinayo daliilo waxyaabo la taaban karo oo la xiriira ganacsigaas iyo ilbaxnimadii hore ee Soomaalida waana tii aynu barnaamijyo ka sameynay xiriirkii faraaciinta iyo Soomaaliya iyo xiriirkii Giriiga iyo Soomaalida tabinteena maanta waxaynu ku dul istaagaynaa helitaanka raadadkii hore ee reer Saba ee geyiga Soomaalida kaas oo ka dhigan inuu yahay daafurkii ugu weynaa ee la xiriira boqoradii Balqiisa iyo Soomaaliya sida uu ku sheegay taariikhyahankii weynaa ee reer Giriig Strabo buugiisa caanka ah ee Geographiya waxaa jiray ilaa 5 macbad goobo wax lagu caabudo inta u dhaxaysay Saylac ilaa Raas Xaafuun ee xeebaha dhulka Soomaalida xilligaas oo ku beegan ilaa 2,000 oo sano ka hor Strabo waxa uu sheegay in loogu yeeri jiray meelahaas Bisulay Liya Bifangel Libaax iyo Haramota waxayna ahaayeen qaar leh tiirar dhaadheer oo qurxoon magacyadaasi kuwii reer Saba ayaa lagu shabahay ama lagu tilmaamay qariirada dhulka Soomaalida ee uu ka muuqdo gacanbadeedka Cape Gardafu waxaa ka muuqata inay dadkaasi u badnaayeen ama ahaayeen kalluumaysato banjoog ah oo aan qalab fiican haysan ama sida badan xoolo raacato sabool ah oo socoto ah oo yartahay inaad aragto dhismayaal iyo magaalooyin hore ay ka tageen haddana aad ayay u ixtiraameen kuwoodii geeriyooday dalmareerkii reer Faransa Georges Rivoli ayaa isaguna markiisa ku arkay magaalada Ologa sida uu sheegay dhismo uu garan waayay kaas oo u eg dhismayaashii hore ee wax lagu caabudi jiray haddaba kolkii aad u fiirsato qubuurihii bulshooyinka Soomaalida ee deganaa mandiqada habka ay u xabaaleen kuwoodii geeriyooday oo ay muruq iyo maal badan u geliyeen waxaad ka minafaaradaysanaysaa waxaan uga jeedaa waxaad ka fahmaysaa in dadkii arlada ku noolaa waayadii taariikhda ka horeeyay ahaayeen qaar wax u aaminsan oo aanay ahayn cawaan wax magarata ah taasi waxay daliil buuxda u tahay inay ahaayeen qaar aaminsan caqiidooyin u gaar ahaanna waxaan fahmaynaa inay aaminsanaayeen jiritaanka nolol kale oo dambaysa oo tan markaa ay joogaan aan ahayn dadka iyo dalka Soomaalidu waxay isaga mid yihiin inay yihiin mid ka mid ah meelaha weli dihin dunida guudkeeda oo aan wax badan laga ogeyn gaar ahaanna aanay ka ogaan dagaalbaalayaasha dunidu sababtu waxa weeye iyada oo labadii qarni ee ugu dambeeyay ee aqoonta dadka adduunku kobacday ay ahayd mandiqad aan deganayn taasi oo adkaysay in baaritaano dheeraada lagu sameeyo haddii ay noqoto meel ka soo jeedka dadka taariikhda dhulka iyo cidii deganaan jirtay iyo isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee bulshooyinka ku dhaca qarniyadii isxigay ama kala dambeeyay dadka Soomaalida inta la garanayo waxay ahaan jireen mujtamac dhaqan iyo dhaqaale ahaan isku filan maadaama ay ahaayeen kuwa ku tiirsan raacashada xoolaha dabjoogta ah waxay aqoon badan u lahaayeen xagga saadaalinta cimilada cilmiga bulshada iyo dhirta waxayna xasuus badan u lahaayeen xagga
taariikhda iyo dhacdooyinkii hore. Waxaas oo dhan waxaaba waxba la'aan ka soo dhigay iyadoo aanay wax qori jirin waxna akhriyi jirin, iyadoo la yiraahdo dabarka cilmigu waa qoraalka. Waxaan garowsaday haddii ay qori lahaayeen waxyaabihii ay garteen ay ku ogaadeen kasidooda qarniyo badan horteed, maanta waxaynu ahaan lahayn mid ka mid ah bulshooyinka loo iilo qaar ka mid ah culumta bini'aadamku helay ama heerka ka gaaray. Nasiib darro ma dhicintaasi. Markii dabarkii la ilaaway, jaahilnimadaasi waxayna dhaxasiisay hubaal la'aan ku saabsan taariikhdeenna hore iyo aqoontii ay ku gaareen tijaabooyinkii isdabajooga ahaa ee ay sameeyeen bulshooyinkeenna hore. Qoraalladii ay ka tageen oo ay ku xardheen meelo kala duwan sida dhismayaasha macbadyada, buuraha dhadhaabaha leh iyo wixii la mid ah ayaa muujiyey wax badan oo taariikhdooda ah oo si fiican loo fahmi karo. Juqraafi ayaad igala socotaan, waa madal lagu soo gudbiyo tagtada iyo taariikhda Soomaaliya. Haddii aad nagu cusub tahay, bogga follow saar YouTube-kana.